taariikhda dunida aynu maanta ku noolnahay waxaa jira magacyada shakhsiyaad iftiinkooda weli baxayo mana ahan kuwo ay ku muteysteen xukun iyo boqortooyo ee waa in xigmadahoodu yihiin kuwa hago u noqday qulubta dad badan. Dadkaasi waxaa ka mid ah luqmaankii caqliga badnaa, kaasoo talooyinkii uu siiyey wiilkiisa ay ahaayeen kuwa dhaxalgala laguna sharfay in qur-aanka kariimka eebba noogu sheego, iyadoo xitaa loogu magacdaray mid ka mid ah suuradaha qur-aanka. maanta waxaan barnaamijkan uga hadli doonaa dardaarankii luqmaan u jeediyey wiilkiisa iyo casharada aan kala dhex bixi karno ka dhalinyaro ahaan. Soo dhawaada saaxiibayaal, magacaygu waa xasan nuur. luqmaan wuxuu ahaa nin eebbe ku manaystay caqli, ma ahayn rasuul, laakiin wuxuu ahaa nin xigmad badan. riwaayadaha qaar ayaa sheegay inuu ahaa nin madow ah. eebbe ayaa qur-aanka ku sheegay in luqmaan uu siiyey xigmad. wuxuu ahaa shakhsi xushmad badan, dulqaad badan oo fahamkiisuna sarreeyo. dardaarankii uu siiyey wiilkiisa wuxuu taabanayay qayb kasta oo ka mid ah nolosheenna, sida caqiidadeenna, dabeecadaheenna iyo sida aan ula dhaqmayno nolosha adduunka. dardaarankii koowaad wuxuu ahaa inuu wiilkiisa ku yidhi eebbaha u shariig yeelin, isagoo ku yidhi inaad eebbe u shariig yeesho waa dulmi aad u weyn. luqmaan wuxuu barayay wiilkiisa in asaaska nolol wanaagsan tahay iimaan wanaagsan inuu qofku leeyahay. maanta dhallinyarada waxaa jahwareerinaya aaladaha casriga ah, afkaar kala duwan oo inta badan marin habaabin ah, balse inaad naftaada alle ku xirto waxay ku siinaysaa iftiin iyo xasilooni. wiilkiisa wuxuu kula dardaarmay inuu waalidkiisa xushmeeyo. ka sokow towxiidka, luqmaan waxa uu xusuusiyey wiilkiisa arrin kale oo muhiim ah, taasoo ah inuu xushmeeyo waalidka, maadaama waalidkeennu dadaal ku bixiya barbaarinteenna iyo weliba qaabeynta nolosheenna. eebbana wuxuuna faray inaan xushmeyno waalidka, xitaa u samafalka waalidka waa camal lagu muteysto janno. dardaarankiisu waxaa ka mid ahaa inuu faray inuu ogaado in eebbe wax walba og yahay oo aysan jirin wax ka qarsoon. luqmaan wuxuu barayay wiilkiisa in eebbe wax ka qarsoomi kara aysan jirin, wax yar oo dulmi ah ama wanaag ah oo la sameeyo eebbe og yahay. imaam al-ghazaali oo sharaxaya arrintan wuxuu yidhi, inaad og tahay in eebbe ku arkayo marka aad dembiga samaynayso waa tallaabada koowaad ee kaa joojin karta dembigaasi. marka dhallinyaradu xusuustaan in eebbe uu la socdo wax walba, waxaa u fududaata inay nolol toosan ku noolaadaan, xitaa marka aysan jirin cid waardiyeynaysa. talooyinka waxaa sidoo kale ka mid ahaa in uu salaada oogo, samaha faro, xumahana reebo, kuna sabro wixii ku dhaca. salaada waa xarigga isku xira addoonka iyo eebbe. waxay qofka siisaa adaab ama dishibiliin iyo xiriir uu qofku dareemayo inuu allihii abuurtay la leeyahay. sidoo kale salaadu waxay qofka siisaa kalsooni iyo adayg marka ay soo wajahaan marxalado adag oo dhanka nolosha ah. sida uu rasuulkeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haata hore u yidhi, ninka adagi ma ahan kan dadka kale ka adkaada, ee waa kan xakameeya naftiisa marka uu caraysan yahay. taasoo ku tusaysa sida uu sabarku u yahay mid qofka ka dhigaya qof adag oo xilliyada adag dhibaatooyinka soo wajaha xakameyn kara. walaalayaal, xilli aynu ku noolnahay duni dadka ku jahwareerinaysa in guushu tahay in qofku helo dhaqaale iyo caannimo, ayaa dardaarankii luqmaan wuxuu ugu yeerayaa dhallinyarada guusha dhabta ah ee nolosha, taasoo ah iimaan, ku shukrinta alle, mas-uuliyad iyo sabir. saaxiibayaal, safarka nolosha waa bilow. aan ka dhiganno dardaarankii luqmaan mid haga tallaabooyinkeenna, qulubteenna ifiya, naguna haga nolol wanaagsan si aan u gaarno guusha dunidan aan ku noolnahay iyo tan maalinta dambe ee aakhiro. waad ku mahadsantahay dhegeysiga barnaamijkan. waxaan kaa codsanayaa inaad asxaabtaada la wadaagto. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.